السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخيارتان جعلهاي وندين سلامي سلام كدب أخياري مانتا وعن ربع عشري رقصابسان سيدي واتساب أنو بدري كرام مسج أنيقو استعمالها بروغرام قاعن كتيدي كوساميستي بروغرامكو حان كوسامين دونا مادة لو يقانا بايتون وحان استعمالي دونا موضوع بدن سي بروغرام كاسانو استعمالنا وانو غشقيسينو وحان أباهنان دونا دوشي sidoo kale waxaan u baahnaan doonaa browser sidaan hore idinkuugu sheegay marka intaan cashirka bilaabin waxaan idin leeyahay horta marka hore channelka aad ku cusub tahay subscribe saar, asxaabtaada la wadaag, share garay, comment ka bixi haddaad videogan programka loogu hadlayo aad jeclaatana like saar marka aan bilaabno. intaan cashirka bilaabin ka hor horta waxaan rabay inaan idin sheego akhyaar jirtay oo dhahday waxaan rabnaa inaan bilowdo Android programming ama program ku saabsan mobile application. markaan xayeysiiska sameynayay, xayeysiiska description-kan soo gelin doonaa waad arki doontaan. markaan xayeysiiska sameynayay waxaan xayeysiiska u sameeyay, tusaalehaan xayeysiiska aan sameynayay wuxuu ahaa xayeysiiska aan sameynayay wuxuu ka hadlayay waxyaalaha channelkan looga hadlo. channelkan sidaan hore idinkuugu sheegay waxaa looga hadlaa waxa loo yaqaano video editingka, sidoo kale programming languageka waa kan halkaan ay kugu qoran tahay web development, programming iyo editing. programming waxaa soo galayo iyo web developmentiga waxaa soo galayo mobile application development in lagu sameeyo. waan gaari doonaa waana sameyn doonaa insha Allah. waxaan ku bilaabi doonaa mobile application keena anagoo isticmaalayno Android Studio. intaan aan Android Studio bilaabin horta waxaa muhiim ah inaan isla fahanno sida loo sameeyo applicationada computerada quseeya, kadib mobile application waan bilaabi karnaa insha Allah. waan bilaabi doonaa mobile application tutorialskaas. marka waxaan ka sameeyay programkan maanta nodekaas oo aan u baahnaan doono hadhow inaan soo install ama aan isticmaalno. waa kan nodeka aan ka sameeyay programka. programka horta saa ugu jeedaan waxaan ku isticmaali doonaa Python app waaye that sends message from WhatsApp to user or groups. yani waa program ku saabsan WhatsApp navigation. WhatsAppka waxaa loo isticmaalaa inaan fariin isku weydaarsano. WhatsAppka wuxuu fududeeyay in la isticmaali karo API-giisa. si aan WhatsApp API u isticmaalno waxaan isticmaali doonaa program yar oo ku saabsan inaan WhatsApp-kayga caadiga ah aan message ka diro anigoo aan message-ka qoraayo laakiin default ahaan aanan ku qoraynin meesha lagu qoro WhatsApp messageska. si aan programkaas camal u sameyno waxaa loo baahan yahay horta waxaa ka mid ah XPath inaan naqaano. horta XPath maxaa la dhahaa? XPath can be used to navigate through elements and attributes in an XML document. waxweyn maahan. XPath-ka wuxuu soo akhriyaa ama loo isticmaalaa attribute navigationka uu leeyahay element oo ku saabsan XML. XML haddaad taqaanaan waxaa laga wadaa XML waa HTML extended lagu sameeyey. XML badanaa waxaa loo isticmaalaa programmada ku dhisan website-yada ama programmada ku dhisan sida applicationada oo ku dhisan tusaale ahaan WhatsAppka oo kale XML documents ku dhisan yahay. WhatsAppka waxaa lagu sameeyey waxaa waaye qaab waxaa loo sameeyey mobile ahaan. marka XML-ka waxaa loo isticmaalaa markii la sameynayo mobile applicationska badanaa waxaa la isticmaalaa XML. markii la joogo hadda Android markii la joogo Android Studio waxaa isticmaalaysid waa laba shay, inaad isticmaasho waxa loo yaqaano XML iyo inaad isticmaasho Java. XML waxaa lahaa waa extended HTML. marka XML path expressionka meeqa nooca loo isticmaali karaa? tusaale ahaan language-yada ama luqadaha loo isticmaalo XML expressionka can be used waxaa loo isticmaali karaa meeshan kugu qoran inaan ku isticmaalno wax loo yaqaano JavaScript waad ku isticmaali kartaa. Java waa ku isticmaali kartaa. XML shim waa ku isticmaali kartaa. sidoo kale PHP waa ku isticmaali kartaa. Python haddaan ku isticmaalaynaa Python waa ku isticmaali kartaa. sidoo kale C waad ku isticmaali kartaa. C++ waad ku isticmaali kartaa iyo luqado kala duwan oo aad ku isticmaali karto XPath-kan. marka programka markaan ka hadlayno programka qaab noocee u shaqeyn doonaa? programka wuxuu u shaqeyn doonaa inaan WhatsApp aan leeyahay message aan ka diro
kadibna WhatsApp kaas aan uga diro message asxaabteyda ama group aan ku jiro inaan message kaga diro. So programkaas aan u isticmaali karaa. Programkaas waxaan u isticmaali karaa horta programka meeshaan uu noo yaalaa. Programka waa halahan. Programka wuxuu ka kooban yahay halahan line. Tusaale ahaan waxaa waaye 1 2 3 4 5 6 7 hoos u soo deg 8 9 10 11 12 13 line waaye, laakiin 13 line-kan maxay qabanaysaa? 13 line-kan waxay qaban doontaa shaqo oo lagu qaban doono programka in programkaaga laga diro message loona diro WhatsApp group ama WhatsApp. Si aan u diro message horta waxaan kicin doonaa programkan inaan kiciyaan isku dayi doonaa si aan u aragno qaabka uu u shaqeynayo programka. Waxaan leenahay run python. Markaan programka saas u kicino waxaa soo kici doono Chrome soo kacayo. Chromekaas wuxuu ku weydiin doonaa inaad gelisid screen waxa loo yaqaano web screen oo WhatsApp uu leeyahay. Chrome markuu saan usoo kaco wuxuu raadin doonaa screenkaas oo loo isticmaali doono WhatsApp configurationka ama WhatsApp platformka. oo yacni WhatsApp webkan waxaa loogu talagalay inaad iskugu xirto taleefankaaga iyo computerkaaga qaab ii sheeg markaan rabo inaan ku xiro computerkayga ku xiro waxaan WhatsAppkan gali doonaa. So WhatsAppka markaan saas u galo taleefankayga waxaan sameeyey tusaale ahaan groupka waxaa ku qoran test. Waxaan leeyahay right click meeshaan aan ku dhufanaa. Markaan meeshaan ku dhufto waxaan leeyahay WhatsApp web meesha ku dhufanaa. kadib markaan meeshaan ku dhufto waxaan leeyahay screenkan furanaa. So navigationkan aan akhrinaa QR code-kan markuu akhriyo WhatsAppku caadi ugu xirmaa. Markuu ku xirmo waxaa lagu dhihi doonaa meeshaan xoog geli. So waan isla arki doonaa qaabka u shaqeynayo. tusaale ahaan hadda waa kan WhatsAppku ku xirmay. So meeshaan fiiri intan uu ku xirmo WhatsAppka waa kan groupka. marka hadda meeshaan inta waxaa taleefanka waa kaasoo ujeedin waxaa uu kusoo diray mute help. laakiin hadda waxaan rabaa inaan wax ku diro. waxaan leeyahay testy group nameka waa testy. yacni meeshaan waxaa lagu dhahay waxaad gelisaa nameka groupka ama waxaad gelisaa user. yacni groupka namekiisa waxaa la lahaa testy. messageka aad rabtid inaad u dirtid waa maxay? messageka aan rabo inaan u diro waxaa waaye messagekan gelina waxaan leeyahay tusaale ahaan Python aan leeyahay Python test aan leeyahay. So Python test markaan dhaho waxaan leeyahay enter. markaan enter dhaho meeshaan waxaa kuu soo baxayso waxaad gelisaa halaha aad rabtid inaad u dirtid messageka. tusaale ahaan 10 message ma rabtaa inaad ka dhigtid hal message ma rabtaa. So waxaan leeyahay 7 message iga dhig kadibna waxaan leeyahay enter. waxaa soo dhici doona 7 message halkan markuu koodkan fiir meeshan waxaa leedahay anything after scanning QR code. QR code markuu dhamaado waxaa rabtid qori kartaa enter aad dhigi kartaa. enter aan dhahay. So waxaad ku arki doontaa halkan in soo dhacday Python test. aan ku fiirino computerka markaan diraynay waxaan u dirnay halkan aan ku dirnay waa kan waxaad ujeedaa meeshaan inay kusoo dhacday Python test. marka aan bilowno cashirkan waa cashir xiiso badan marka ayuu ku dhaafin cashirkan insha Allah. marka akhyaaray waxaan bilaabi doonaa koodkeena aan ka shaqeynsiin doonaa noo isticmaali doona programka. So waxaan leeyahay CLS si aan programka uga shaqeysiyo ama aan u isticmaalo programka waxaan sidii hore aan u samaysan jirnaba testerka yacni folderka testerka waxaan ku abuuran doonaa file cusub. filekaas oo aan u baxsan doono WhatsApp ama WhatsApp horu u jiray aan dhihi doono tusaale ahaan waxaan leenahay send. waxaan u bixin doonaa send.by. waxaan ka wadnaa extensionka ee leedahay Python. So markaan saas u bilaawno waxa ugu horeeya oo la iga rabo inaan isticmaalo waxaa khasab ah inaan Seleniumka model Seleniumka la dhahayo inaan kasoo import gareysto waxa loo yaqaano WebDriver. So si aan usoo import gareynayo waa arki doontaa qaabka loo soo import gareynayo. waxaan leeyahay from waxaad ka keentaa Seleniumka waxaad ka keentaa modelka Selenium la dhahayo waxaad ka keentaa wax loo yaqaano adoo soo import gareynayo packageka la dhahayo WebDriver packageka la dhahayo soo import garey.
markaan saas usoo import garay WebDriver-ka waxaan leeyahay enter. markaan enter dhaho waxaan sidoo kale driver aan sameysanaa ama waxaan sameysanaa variable kaasoo bari doono WebDriver-keyga. so si aan variable-keyga aan u baro waxaan leeyahay driver markaan dhaho driver-kan waa variable ani aan sameysanaa wuxuu la mid noqon doonaa WebDriver-ka intan ka keenay import from Selenium kasoo import gareeyay kadib enter aan leeyahay. WebDriver-keyga wuxuu kasoo qaadanaa webdriver.com aan leeyahay. يعني WebDriver maxaan ka wadaa WebDriver it means halaan waxaa laga wadaa in lagu soo kiciyo programkaaga Chrome si loogu soo kiciyo waxaa khasab ah inaad soo degsatid waxa loo yaqaano Chrome Driver inaad kusoo dersatid waaye. ani Chrome Driver waan soo dejiyay wuxuuna ii yaalaa d-da ama drive d-du ii yaalaa Chrome Driver-ka waa halaan. so marka waxaan soo koobiyeyna copy aan leeyahay kadibna waxaan leeyahay halkaan imaan doona meeshaan waxaan gelin doonaa Chrome Driver-keyga kadib saasaan leeyahay meeshaan aan gelin doonaa kadibna paste aan ku dhihi doonaa waxaan soo koobiyey. so meeshaan akhri waxaa kugu qoran fiiri d-da adoo joogtid waxaad d-da drive d adoo joogtid folderka loo yaqaano Chrome Driver baa extensionka ku jiro ama programka ku jiro oo loo yaqaano Chrome Driver.exe oo loo soo gaabiyo extensionka oo applicationada ay leeyihiin programmada oo lagu yaqaano programmada extensionada tusaalahaan programmada ku shaqeeya Windows-ka extensionadooda waaye. so exe marka saas aan dhaano driver-ka hadda waxaan barnay in driver-kan uu yahay waxaa kicinaya Chrome-keena. so markaan saas dhaano waxaan leenahay driver.get waxaan leenahay driver.get yani driver-ka markii aad rabtid inaad waxa kusoo kicinaysid maxay noqon doonaa driver-ka waad samaysatay in uu Chrome yahay. Chrome-ka markuu soo kaco meeshuu aadi doono datada ay aadi doonto maxay noqon doontaa meesha ay datada aadi doonto waxay noqon doontaa http waxaan leenahay datadeena waxay aadi doontaa http // markaa qortid waxaa leedahay web dot waxaa aadi doontaa website-ka loo yaqaano whatsapp.com markaad aadid waxaa leedahay enter. so markaan enter gareeyo hadda driver-keedu wuxuu soo qabsan doonaa wax loo yaqaano WhatsApp koo horta Chrome-ka soo kici doono Chrome-ka kadib markuu soo kaco waxaa soo gali doona whatsapp.com ama web.whatsapp.com markuu pop-up soo dhaho message-kaas waxaa bilaaban doono in uu kuu soo baxo lagu dhaho waxaa gelisaa meeshaan name-keyga wuxuu la mid yahay input aan leeyahay name-keyga wuxuu la mid yahay tusaalehaan meesha waxaa la dhihi doonaa enter ama geli groupka ama userka magaciisa so meesha waxaa lagu dhihi doonaa waxaad gelisaa groupka ama userka magaciisa. sidoo kale waxaa lagu dhihi doonaa message aan isticmaali doonaa messagena waxaa waaye input aan leenahay messagekana sidoo kale wuxuu la mid yahay meeshan waxaad soo gelisaa soo geli messagekaad diraysid soo geli messageka aad diraysid so markaan messageka aad diraysid soo geli lidho sidoo kale waxaan sameyn doonaa variable kale oo la dhahayo count variablekan count wuxuu sameyn doonaa wuxuu counti sidaan hore usoo aragnay programkeena meeqa message aad rabtaa inaad dirtid so waxaan leenahay count wuxuu la mid yahay countiga waa inputkiis wuxuu noqon doonaa integer marka danta waxay kugu khasbee inaad integer u bedesho waxa hadda la gelinayo waa string laakiin waxaan u bedeli doonaa integer saan ugu bedelaa waxaan leeyahay int kadibna waxaan gelin doonaa meeshan input so input markaan dhaho kadibna bracket kalaan furi doonaa laba qoys markaan saas u furo yacni integerkan wuxuu bedeli doonaa inputkan wax lasoo gelinayo meeshan tusaalehaan waxaad gelin doontaa meeshan meeqo message aad rabtaa tusaalehaan meeqo waxaan leedahay meeqo message ayaad rabtaa soo markaa saas u gelisid meeqo message ayaad rabtaa kadibna waxaa bilaaban doono programkeenaan bilaaban doono so programka si aan u bilaabno waxaan sameyn doonaa markuu waxaan dhan la geliyo waxaa kuu soo bixi doono input noocan ah kuu soo bixi doono waxaa leedahay input aan leedahay interrupt aan dhahay ma rabo waxaan leenahay inputkan wuxuu noqon doonaa marka in la dhaho
markii datada aad gelisid xogta si lagu gudbiyo si xogtaada loo diro enter dheh si xogtaada loo diro enter dheh okay markaas dhaadid koo horta waxaa soo kacayo Chrome-ka markuu soo kaco wuxuu aadi doonaa WhatsApp-ka markuu aado markuu WhatsApp-ka screen-ka iyo computer-kaaga iyo telefonkaaga aad isbarto wuxuu ku dhihi doonaa soo geli group-ka magaciisa kadib waa gelin doontaa haddana wuxuu ku dhihi doonaa geli message-ka aad rabtid inaad dirtid message-kaad gelin doontaa haddana wuxuu ku dhihi doonaa meeqa message aad rabtaa inaad dirtid message-ka mahalaha rabtid aad gelin doontaa kadibna wuxuu ku dhihi doonaa si xogtaada loo diro enter aad dhihi doontaa kadibna xogtaada waxaad ka fiirsan doontaa WhatsApp-ka so halahan kuma eeka waan sii wadi doonaa so waxaan leenahay marka waxaan samaysan doonaa variable la dhahayo userkeegu wuxuu la mid yahay driver markaan dhaho enter aan leeyahay driver markaan dhaho .find element aan leeyahay .find element by maxaan ku raadinayaa elementiga by class aan ku raadinaa mise by xpath aan ku raadinaa so xpath aan ku bilaabi doonaa find element xpath kan sidaan hore idinku sheegay waa in xog laga soo raadiyo xml file si aad u isticmaasho classkiisa ama aad u isticmaasho name uu leeyahay so markaa meeshaan marayno waxaan leenahay find elementiga waxaan ku raadin doonaa wax loo yaqaano by anagoo isticmaalayno not class name waxaan isticmaalaynaa xpath waxaan leenahay xpath aan ku isticmaali doonaa xpathka aan isticmaalayo muxuu yahay xpathka aan isticmaalayo wuxuu noqon doonaa inaan dhahno spankaan aan isticmaalayo waan arki doonaa qaabkiisa waxaan leenahay titleka muxuu yahay titleka wuxuu yahay ciwaanka uu leeyahay isheeg ciwaanka aad u samaysatay groupkaaga ama userka ciwaanka aad u samaysatay kadibna bracket kale waxaad laba qoys waxaad furi doontaa laba bil kadibna laba qoys aad furi doontaa marka labadaas qoys furto meeshaan waxaad ku soo xiri doontaa bracketkii furnaa waxaad ku soo xiri doontaa meeshaan bracketkan furnaa ku soo xiri doontaa dot waxaa leedahay formatkiisa oo noqon doono .format aan leedahay formatkiisa wuxuu noqon doonaa name intee ka keenay name halkaasaan ka keenay so waxaan sameynaa hadda xpathka waxaan kasoo akrinay namekii kadibna waxaan leenahay userka markuu programkan soo galo .click yani userka markii click la siiyo functionkan waxaa waaye user drive markuu find element soo helo titlekan uu soo helo kadibna userka click uu siin doonaa user.click okay wuxuu soo helaa tusaale ahaan elementiga userku soo helaa userku ku dhufanaa userka markuu programka kugu dhufanaa userkaas oo click siinaa markuu soo helo namekaas markuu soo helo nameka inta la geliyo markii la soo helo userka click siin doona markii userka click la siiyo waxaa rabtaa marka message in la diro tusaale ahaan user click markii laga hadlaayo wax kale ma ahan programku wuxuu ku sameyn doonaa tusaale ahaan userka waa kan intuu click ku siin doonaa userka waa kan markuu click siiyo intuu imaanaa markuu meeshaan imaado waxaa rabtaa user click lagu sheegayo waxaa wax kale ma tusaale ahaan hadda waxaan isticmaalayna wax loo yaqaano xpathka aan ka hadlayo wuxuu noqon doonaa inspect aan leeyahay si aan idin tusiyo fileka meesha lagu akrin doono inspect markaan dhaho tusaale ahaan waxaan rabaa meeshaan testigan inaan idin tusiyo meesha uu yaalo so waxaan furi doonaa intaan furi doonaa markaan furo meeshaan aan sii furi doonaa markaan furo spaano badan ayaa yaalo ma u baahan isbaanadaas badan hoosaan u degi doonaa intaan furi doonaa kanaan furaa markaan saas u furo qaybta aan ka rabo waa halaha qaybtaan waaye qaybtaan aan ku dhufan doonaa markaan ku dhufto qaybtaan hoosaan usoo degi doonaa wey waxaan tegi doonaa meeshaan markaan meeshaan furo waxaan ka raadin doonaa ciwaanka tusaalaan qaybta aan hadda joogo waa kaas intaan ku dhufan doonaa inta ka fiiri qaybtaan joogo markaan ku dhufto markaan meeshaan ku dhufto kanaan furi doonaa markaan furo hoosaan usii degi doonaa tusaale ahaan waxaan raadinayaa hadda userka okay meeshaan classkaan aan furi doonaa classkaan markaan furo hoosaan usii degaa weli hoos markaan usii dego okay sug intaan furi doonaa weli wuu socdaa okay waa kan userkaana rabaa inaan arko kanaan ku dhufan doonaa td boxkaanaan kusii dhufan doonaa markaan ku dhufto kanaan kusii dhufan doonaa markaan ku dhufto ma rabo userka kanaan rabaa
kanaan kusii dhufan doonaa markaan kan kusii dhufto testiga intaan sii furi doonaa classkanaan sii furi doonaa waa kan titleka maxaa ku qoran meeshan waxaa ku qoran waxaa loo yaqaanaa test intan maxaa yaalo span marka span titleka la isbaraayo waa halkan span ayaa yaalo meeshan titlekiisana waa kan testiga ku qoran so marka userka markii click la siiyo yani programka markuu driverka soo qabto nameka aad meeshan gelisid inuu jiro uu ogaado wuxuu ku dhihi doonaa formatkiisana uu yahay namekan meeshan lasoo geliyay kadibna wuxuu ku dhihi doonaa userka click siin doona programka automatically click isku siin doonaa markuu click is siiyo wuxuu aadi doonaa messageka meeshii laga diri lahaa so messageka markaa aragtid inaad dirto waxaa u baahan tahay message inaad aadid messagekaaga waxaa leedahay message box aan sameysanayna oo anaga noo gaara message boxkan waxaa waaye meesha messageka lagu qori lahaa waaye message boxkan waa meesha messageka lagu qori lahaa variableka message box markaad aadid waxaa leedahay driverka maxaa waaye kan waaye driver wuxuu la mid noqon doonaa inuu kasoo helo find by elementiga uu kusoo helaya tookadan waa ka duwan yahay wuxuu kusoo raadin doonaa class name kusoo raadin doonaa class name ahaan aan u isticmaali doonaa xpath waan ka gudubnay class nameka aan isticmaalayno wuxuu noqon doonaa marka class nameka aan isticmaalayno wuxuu noqon doonaa intuu igu diyaarsan yahay class nameka waa kan message boxka class namekiisa waa kana waan idin tusin doonaa meesha aan ka helay waan intaan ku paste gareyn doonaa marka meeshaan ku paste gareey okay wait a second waxaan tagi doonaa meeshaan kanaan soo koobiyeyn doonaa halaan waaye copy aan leeyahay markaan koobiyeeyo meeshaan ku shubi doonaa markaan ku shubo oo waxaan leeyahay save marka class namekan oo loo yaqaano message boxka intaan ka helay waxaan ka soo helay inaan ku laabto meesha inspectiga qaybtaan oo kusoo laabana maadaama inta aan joogo qaybtaan koraan kusoo laabana koraan aadi doonaa halkan qaybta aan rabo waxaan ka raadin doonaa halkan tusaalahaan woolkan waa kan qaybtaan rabaa inaan message fieldiga aan idin ka tusiyo meeshaan aan furi doonaa kadib meeshaan waxaan furi doonaa hoos aan usoo degi doonaa waa kan haddaan jooga footerkaan imaan doonaa footerka markaan imaado waxaan ka raadin doonaa meesha messageka uu ku qormaayo meesha uu messageka ku qormaayo inuu highlight saarmo okay sidoo kale hoos aan usoo degi doonaa ma ahan kaas waa sandigii waa kan meesha uu messageka ku qormaayo okay hoos usoo deg waxaan raadinaynaa meesha uu messageka ku qormaayo okay waa kan meesha uu message ku qormaayo waa kan so meeshaan fiiri maxaa kugu qoran class namekaaga maxaa waaye 13 right hash 13 mgz intana maxaa igu qoran 13 hash calaamadan 13 mgz so markaan soo hela classkaas message boxka aan geliyo it means message boxka lagu sandigareyn doono classkiisa wuxuu noqon doonaa in class nameka la baro so class namekiisa wuxuu noqon doonaa meeshaasaan kasoo koobiyey so waxaan leeyahay marka message boxka markaan baro waxaa sidoo kale waxaan sameyn doonaa inaan loop sameeyo loopkaas oo noqon doono messageka la diraayo countiga lagu diraayo meeqo message uu diri karaa loop ahaan inaan u sameeyo so waxaan leeyahay for loop aan isticmaali doonaa waxaan leeyahay I inay gaarto ranjiga ida inay gaarto ama loo isticmaalo ranjiga qofka countiga uu soo geliyo tusaale ahaan hadduu 10 xabo soo geliyo in 10 loop loo sameeyo 10 message oo noocaas oo kale loo diro loop markuu meeshaas joogo oo ay ranjigeeda uu la ekaado count qofku wuxuu soo geliyo oo count ah kadib waxaan leenahay loopkaas waxaan dhihi doonaa message boxka aan soo qabsanay variableka loo yaqaano message boxka .send inaan dhaano markaan send keys يعني send keys waxaa laga wadaa inay send markii la diraayo in la diro keyska anoo isticmaalayno wax loo yaqaano keyska la diraayo maxaa waay waxa aan dirayno maxay noqon doonaan waxa aan dirayno waxay noqon doonaan messageka aan ku soo sameystay kor messageka waa kan maxaa noogu qoran message aan noogu soo qoran noogu koobiyey kadibna markaa copy daadid halkan ku paste garee okay hoos soo deg meeshaan ku paste gareynaysaa marka meeshaan ku paste gareysid oo paste daadid kadib waxaa leedahay enter so message boxka waxa la send gareynayo oo la soo geliyo la send gareynayo wuxuu noqon doonaa messageka qofka uu soo geliyo kadibna waxaa la sameyn doonaa driverka in click la siiyo so si click loo siiyo waxaan leenahay driverka wuxuu noqon doonaa .find elementiga aan kusoo heli doona isna wuxuu noqon doonaa class name aan kusoo heli doona waa buttonkii meeshaan waa variable buttonkii shaqeyn lahaa waay so waxaan leenahay driver
find element by class aan ku raadin doonaa by class name kadibna class name keen wuxuu noqon doonaa waxaan leenahay kanaan furi doonaa class name kan waa kan intuu noo yaalaa class name ka kan noo soo koobiyey kadib waxaan leenahay intaan paste ku leenahay markaan paste meeshaan ku dhahno oo meeshaan aan joogno enter aan leenahay so enter markaan dhahno class name ka waxaa la rabaa wax click siiya class name kan waxaa loo baahan yahay wax click siiya si kaliga oo siiyo variable kale ma qabsanayo dot kaliga la leeyahay wax misdhibaayba dot kaliga aan leeyahay kadibna function kaas waa xiri doona programka halaanu ku eegaya so marka kan intaan ka helay asna waxaan ka helay waxaan furi doontaa inspectiga so inspectiga markaa furtid kan meeshaan uu yaalaa tusaalahaan markaan wax diraayo kan uu isbedelaa tusaalahaan markaan wax qoro wuxuu isku bedelaa message ahaan uu isku bedelaa so kan seen u heli karaa يعني button kan sidaan u heli karaa button kan waxa ku heli kartaa inaad meeshaan tagtid tusaalaan waa kan button ka meeshaan uu yaalaa kana furaysaa kanaad ka sii furaysaa wali okay waa raadinayna span ka meesha uu yaalo waxa leedahay span kan fur okay button ka waa kan class name kiisa aa marka class name ka button ka uu qaadanayo wuxuu noqon doonaa button ka class name ka uu qaadanayo class name ka button ka uu qaadanayo hadda message ka ma ahan okay message aan ka dhigaynaa okay class name ka button ka uu qaadanayo message ka hadda waa kan mujada button kan class name ka waa hadda sound diraysidna midka soundiga dooranaysa mujada meesha waxa ku qoran 3m negative n negative so meeshaan fiiri isna waxa lagu qoran 3m negative n negative so programka si aan u ogaano inuu shaqeynayo waxaan kicin doonaa programkan waa save gareynaa horta haduu error jiro error soo bandhiga haduu uu programka shaqeynayna programku uu shaqeynaa so marka si aan programku uga shaqeysiiyo waxaan soo kicin doonaa programkayga run python marka saas u kiciyo programka uu soo kaco waxaan leeyahay screenka waxaan furi doonaa new web whatsapp web kadib waxaan leeyahay add markaan ku daro tookadan insha Allah wuu shaqeyn doonaa waxaan leeyahay waan sugaa intuu ka soo kacayo internetka xogaha culus so message-ka uu soo bixira oo uu soo baxay QR code-ka uu akhriyay so markuu saas u akhriyo QR code-ka waxaan leenahay inaan ku qorno meeshaan waxa aan rabno xogta aan rabno inaan gelino so xogtaan gelinayna halkan so waa sugeynaa wax yar intuu QR code-ka ka qaadanayo okay wuu qaatay kadib waxaan leenahay meeshaan magacaan gelinaynaa test you ahaa interaan leenahay so geli message-ka diraysid message-ka aan dirayna gelinayna message-ka aan dirayna muxuu yahay message-ka aan dirayna wuxuu noqon doonaa waa test application meeqa xabaa rabtaa inaad dirtid 4 xabaan leenahay interaan leenahay so waa sugeynaa inta message-yada ay kasoo dhacayaan waa kas fiiri message-ku uu soo dhacay meesha waxa kugu qoran waa test application meeqa xabaa la diray waxaa la diray waa ujeedaa waxaa la diray 4 xabo intan maxaan ka codsaday test waxaan joogaa groupka la test 4 message aan usoo diray 4 message waxa waaye waa test akhiray intaan cashir lamid aan ku kulmi doono waxaan idinkaga tegayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh